waxaa dhacday hadda ka hor waa laga yaabaa inaad iga maqasheene taxi baan soo fuulay masar meesha la yidhaha baan joogaa salaaddii maqribkaa meel nagu qabsatay ninkii baabuurka waday waxaan idhi ii jooji salaadan tukanayaaye wuu ii joojiyey umaba fiirsanin waxaan islaa wuu tukanayaaye ila ninkii maba tukan baabuurku sii fadhiyey salaaddii markaan soo tukadan soo noqday isagoo weli meeshii sii fadhiya waxaan wadhihom yaadan muslin ahayn ilen qaanaan muslin ahayn bay leeyihiin iyagube oo gaalay leeyihiin oo kristan waxaan muslin soo ma tihin wuxuu yidhi muslim baan alxamdulilah oo maxaa u tukan weyday wuxuu yidhi wallahi mashquul baan ahay shaqadaanaan ku jiraayo marka waa odhan karaa salaada ninkii ka taga waa gaal ilaa aakhirihi wahada xaq laa shaka waa xadiid saxiixa lakin usluub kalaa jiro usluub dacawiyaho taxbiib hada almakhluuq ilaa khaaliqihi intaadan awaamirtiisa u sheegin bal jeclaysii rabbigiis horta waxaan ku idhi su-aal baan ku weydiinayaa tagsigan adiga maale mayu yidhi waan ku shaqeeyaa imisuu ku siiyaa ninka iska leh imise ayaad ka qaadataa imisuu ku siiyaa wuxuu yidhi 120 baan u malayn meelahaas ugeed 120 geli waxaan idhi aniga hadda qadar meel la yidhaha baan ka imi saad la socoto qadar waa meel lacag badan ay taallo waana runtii lacag badan way taalla inkastoon aniga lacag badan aan markaas aana wadinba laakiin lacag badan baa taalla waxaan idhi waxaan doonaynaa baan idhi inaan iibsano hal il mid annaga naga mida il u baahan marka il baan rabnaa inaan gadano lacagta lagu doonayana waa maftuux waxaad rabto sheego marka adiga yay arrinta yaan ii muuqataa inaad munaasib tahay inaan isha kaa iibsano ma garata lacagtana waxaad rabto qabso malyan malyuuneyn 10 malaayiin intaad rabto اللي تريده هل إلنا ولا قربا إيش كلنا وتخش غير سكرتها نكي مركز ساكو إلي يعني عرضي وعروضي بابوركم جوجين قالي انت بتقول ايه ما حد هذا حدخل هذا ليس سئل هذا ليس انا ابيع عيني انا ما ايش هذا يبني حنا جنن حرونني ما تزعلش يا اخوي هذا عرض تجاره صفقه وديني كرتا ويالي كرتا ما كيف ابيع وحنا تاخذ ملايين يا اخي كلمه عجيب الوجه والله وحيل والله لو الدنيا كلها لو الدنيا دي دلك وهشرب لو الدنيا كلها الدنيا ودن هذا الشيء كذا ملايين بتجيسها انا ايش هذا كسي انا مجنون ما والله سيكوسينا ايش الدنيا ودن هذا الشيء وانت نكرم بوقته وحنا طيب خلينا بقى من هذا العين والدنيا ودن هذا الشيء سنين adiga imsaad ka bixisay kam dafacad imsaad ku gadatay oo yaabay hadana imsaad ku gadatay la xaga ka kanta hadana rabbigay baa ishi rabbiga baa ku siiha Allahu akbar wama akhad minnak shay ma alhamdulillah rabbana a'tani ya waaya su'aal baan ku weydiinaya marka rabbigaagii hal ilmo ee labada indhood ku siiyey ee laba dhagood kugu daray ee af ku siiyey ee san ku siiyey xasatu shammi ku siiyey ee caafimaadaad ku shaqaysata ku siiyey ee labada gacmood ku siiyey ee labada lugood ku siiyey miyadan karsantahay inuu isaga ku siiyo waxaas oo dhan laa huwa alladii acطaani wuxuu ku yidhi 5 waqti horteeda soo istaago waad mahadsantahay igu dheh shukran oo yuriid minka salaa hiya shukru lilah الصلاة هي مقام الحمد لله وما هذا نقد ربك وما هذا نقيشه ربك وحاك شيء شن وقتي أو مركب هذا يقول بدته طبعا ربع ساعة هذا يقول بدته صلاة الشيخ وديريه ربع ساعة هرتي شيء استاكتك وحاتلي ما أقولي وكم مشغول سنة كي بقول يا لما تنجني كسينة يينا شغلي سيديار بعضو تاينادو تاغناتو نكي أدبو تأفري كلمات كيغاس إلهي باوحو وقدقي يعني كلمات مؤثرة أنا مركها والله أنا كسر تلقني هرين أوشي وقيل إلهي بيقول إلهام هنا سأقول هذا نكي اللي باكو سجود فتي نكي وحيري إن شاء الله أوعدك إن أنا هذا كذب صلاة أنا كتير سأصلي ولن أترك الصلاة ما حاد درينسي
maxaa qalbigiisa dhaqaajiyey taxriik alqalb fii xub illah ilaahay jeclaysii jala jalaaluhu insaankan intaadan amrullaahi u sheegin xabibhu ila allah acraabi baa nebiga weydiiyey man anta ana rasuulu llahi waa jawaab laakiin intaa kuma kaaftoomin rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ana rasuulu llah aladii idaa asaabaka durun fadacawtahu kashafahu cank waidaa asaabatka caamu sanatin fadacawtahu anbataha lak waidaa falatat daabatuka waanta fii falaatin fadacawtahu raddaha ilayk ana rasuuluhu rabbigii markaad dhibaatooto ood barido ku ajiibi jiray rabbigii haddii abaari kugu dhacdood barido roob ku keeni jiray iyo naxariis rabbigii hadday daabadii aad saarnayd kaa fakato adigoo meel cidla jooga kuu soo celinayay rabbigaasaan rasuulkiisa ahay yuxabibuhu ila allah intuusan awaamirta ilaahay u sheegay taasaa marka lanooga baahanya dacwada inaan ku dadaalno oo dadka ilaahay jeclaysiino si ay rabbigood u jeclaanaan awaamirtiisa u hoggaansamaan xaafidu lqur'aan oo waxaad ogaataa ilahay wax weyn buu ku siiyey allahu rabb اlcaalamiin fii maqaami اlimtinaan nebiyada marmarka qaarkii uu minadiisa iyo galladihiisa u sheego sida uu yidhi walaqad manannaa calىa muusa wahaaruun walaqad manannaa calayka maratan ukhraa muusa markuu la hadlayay nebi maxamed markuu minadiisa iyo galladiisa uu kala hadlayay wuxuu yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولقد آتيناك سبعا من المثاني وسورة الفاتحة بانو كسيني والقرآن العظيم قرآن كوينا ولا كان ساسعرون يا الله الله العظيم ملك الملوك ذو الجلال والإكرام العظيم إذا عظم شيء فهو العظيم عظيم كوينا يا رب العالمين baa qur'aankii wuxuu yidhi alqur'aan alcadiim baanu ku siinay hadday arrintu saa tahay laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum asnaaf dunyawi ahoo aanu ugu raaxaynayno kuwan haafiliinta ah indhaha ha la laclaacin waa ka weyn tahay waay waxa ilahay ku siin baa ka weyn maxaa ka firfirinaysaa adduunya iyo mataaxeeda lama mitid lama mustawa lama tihid haddaad ilaahay oo qur'aanka qalbigaaga ku shugo xaafid kaa dhigay aada u qaadato in qof kale kaa sadroon yahay oo kaa wax badan yahay nicmada ilahay baad xaaqirtay oo ogow ixtaqarta nicmat allahi alcudmaa aya alqur'aan marka taa ogow maqaamkaasaad taagan tahay wa shukru hadihi الnicma almudaawama calayh wاlmuthaabara calayh inaad qur'aanka aad u tuduunsato ood qabsato ood wardi ka dhigato oodan ka tegin aafada dadka xufaadda ah waxaa ugu badan tarku lawraad wardi inay ka tagaan oo inay wardi yeelanin qaar baa waxay ku leeyiin bil dhan ma akrin oo bil dhan haddaadan qur-aan akrin maxaa baad qur-aan ka haysaaba xaggee buuse qur-aanka ku joogaya ku joogi maayo waa iska tegaya tacaahaduu hada alqur'aani soo nebigu ma odhan fawladii nafsu muxamedin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuquliha waa xadiidan wada garanayna wey marka qur'aanka wardi yeelo oo ha ka tegin tajribada ahlulfanina waxay dhaheen waxaa wanaagsan xaafidku inuu usbuuci mar qur-aanka dhameeyo haddaad keri weydo cala alaqal 3 juz 3 juz waxba kaa qaadan mayso wakti badan kaa qaadan mayso hadda zamankan la jooga inta facebook iyo whatsapp iyo waxaa kale balaadan ka qaadanayso in ka yar buu kaa qaadanaya 3 juz 3 juz akhri yowmiyan 10 casho mar dhammee bishii 3 goor dhammee in sha allah qur-aanku wuu kuu sugnaanaya weliba haddaad fariid noqoto ood nin fiican oo ilaahay jecel yahay noqotana habeenkii ku kac oo qiyaamuleyl tuko oo qur'aanka adoo xifdisan hala seexanine qiyaamuleyl tuko walilxadiid sida walaalkan sheekh maxamed uu sheegayey ilahay khayr ha siiya uu duceeyey waalidka raxmatullahi calayhi waxaa idinka sheegayaa intii yarayda anigu ileen juhdigiisa intii badnayd maana soo gaarin iyo dhallinyaronimadiisii iyo xooggiisii intii badnayd dhulalkan uu marayay iyo etoobiya meelahaas iyo uu wax ka barayay maana soo gaarin intii yarayde aan muqdisho isku soo gaarnay baan haddaan wax ka xusuusto waxaan xusuustaa habeen bayna aladaaneyn aadaanka hore iyo aadaanka dambe saacad baa taqriiban udhexaysaa dhexdoodu habeen soo kacay markuu soo kacay habeenka
sidii qof musiibo ku dhacday oohintiisii baan annagu la kacnay oohina laa xawla walaa quwata illa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun caawa shaydaan baana duubsaday inaa lilaahi sidii musiibo weyn inay ku waa hadda bayna aladaaneyn buu kaa leesh leanna caado waxaa u ahayd meesha kowda habeennimo laga gaadho kaana yaquum kowda habeennimo haddii uu bacda alcishaana sheeko agtiisa ma olin bacda alcishaa haddii darsi uu jiro darsigu akrinaya guriga hadduu tago horuu ka seexanaya maabi weligay ma arkin xataa marmarka qaarkii oo qof culus oo marti uu yimaado oo waktigaas soo qaldamo uma mujaamalayn jirin wallahi uma mujaamalayn jirin wax yar hadduu la fadhiyo laba kelima ay isdhaafsadaan wuxuu odhanaya sheekha waxoogay waa iska dadkeena da' baan iska noqday oo habeenkii ma sujoodi kare baaraka allahu fiik khayr waa kuu ducaynaya sheekhu iska sii soco leanna horuu ka seexanaya kowda haddii la gaarana waa taagan yahay yacni mar aadaanka hore wuxuu ku dhici jiray mar uu qur'aankiisii dhammaystay oo qiyaamkiisii dhammaystay wardigaa qur'aanka ayuu u fadhiisan jiray waa alayaam alakhiira wardigiisu wuxuu ahaa fi kulli alaaثati ayaam hadda korna waa idiin sheegay markaan masar ka tegey buu i weydiiyey oo yidhi imisaad qur'aanka ku dhammaysaa intaan masar joogay ee aan asharta ku jiray qur'aanka waxaan dhammayn jiray fi kulli usbuucay baan mar dhammayn jiray marka anigu waan faraxsanahay ano faraxsan baan u sheegay alxamdulillah fi kulli usbuuc waan dhamay xanaantii gaadhay waaba la ogaa usbuuc kaamil oo inta kale maxaad qabanaysaa oo mageedi ari baad raacaysaa oo maxaad haysaaba leesh usbuuc dhan baad qur-aanka ka maqnaanaysa aayadda yani usbuuc markaad aqrinayso macnaha suurad dhan baad usbuuc dhan ka maqnaatay usbuuca kale un baa kugu horeynaya waa inaad 4 cisho ku dhamayso ama 3 ku dhamayso saasay dadkii in sha allahu ahlulqur'aanka ahaa oo ayay siiradoodu ay ahayd oo maaragtay ilaahay waafajiyey saasaan yaan in sha allah naga doonaya anigaan markaan saa leeyahay waxaan idin leeyahay in ilaahay waafajiyo in anigana ilaahay waafajiyo subxaanahu watacaala idinkana allah idin waafajiyo qiyaamu leyl inaan yeelano qur'aankii adkaartiisa ku dadaalno ayaa xaafid alqur'aan laga doonaya kan labaad waa mutacalimka 3 qaybood baa nahay suma noolo qaybta labaad waa ninka mutacalimka ay hadda baranaya adigana sidoo kale dadaal kahratu takraar waxaa laga yaabaa haddan su-aal laydin furi lahaa su-aashiina 9% waxay noqon lahayd sida ugu fudud ee qur-aanka loo baran karo sida ugu fudud ee qur-aanka loo baran karo waa in waqtina aad siisid kahratu takraar iyo ku celcelin badan inaad ku celcelisid oo carabku uu xifdiyo lianna xifdiga dihniga durba waa tegaya laakiin xifdu lisaan yabqaa qaybteenna saddexaad waa qaybta laga yaabo inay dhahaan yani wakti ma hayno aan qur-aanka ku baranno ama mashquuliskiisii baa badan ama da' baa noqdo hadda ma garanaysaa ma akhriyi karo ama maba aqaanama qur-aankii musxafka ma aqriyi karo ilaa aakhirihi horta weligaa waxaad ogaataa da' aan qur-aanka lagu baran karin inaysan jirin ee waxaad niyeysatay inaad qur-aanka barato waa kow tan labaad xataa haddaadan akhriyi karin dee dhegayso oo hadda alxamdulilah sida akhuuna sheekh uu noo sheegay idaacat alqur'aan waa min acdam alfuras furso weyn baad haysataa iska furo la soco musxaf soo qaado haddaad kala socon karto haddii kala dhegayso fa anta walqaari sawaa in sha allah kan akrinaya adiga isku ajri baa tihiin barakaadka samaaca lama koobi karo ad qur-aanka dhegaysanayso qur-aanka dhegayso almuhim kulligeen in sha allah qur-aanka yaanaan ka qadin oo kulligeen aan u sinaano in sha allahu tacaala kullunaa ahla alqur'aan allah naga dhigo